Thank you very much. Aad baad mahadsantihiin. waxaad bay u mahadsan tahay. waxaan jeclahay horta dadweyne fara badan baa ka soo qayb galay xafladda. gaadiid badan bay wataan. ayaa xagga gaadiidku magaranaysaa u taagan yahay. laba oday oo xafladda ay nagala soo qayb galay ayaa doonaya inay carraabaan. dhallinyaradu kulley rag way soo hadhayaan. waxaan idinka codsanayaa labada gaadhi ee aan nambarkooda halkan idinka sheegi doono labada qof ee wataa waa loo xaniban yahay inay baxaan oo ay ka daba qaadaan. waxa weeyaan 29,000 eber 5 waa 29065. gaadhiga kalena waxa weeyaan 33,768 33,768. ubaxaad baad mahadsan tahay. qofba taariikhbu u soo joogay kanaad nasiib u yeelatay inaad ka heesto. halkanna kulcoo 52 sannadood ka hor ka heesay baa joogay. waxaan jeclahay horta hees kale kugu xafladda weli way noo socotaa. xagga dambe aynoo heesaaga kale ku soo qaadan doonaa. laakiin adigaba waa lagu jiibiyey inaad jiibiso soo waajib maaha. aad iyo aad baan u ahay inaad jiibiso. sahra axmed sahra ilays baan ku soo dhawaynayaa oo iyaduna hees noo qaadi doontaa iyo daawasho wanaagsan dhegayso wanaagsan. الله يعني ما وحن ايش خرس ما قلتها عارف الكاميرا ده نقول قبل يعني انه يعرف كل عقل سنه بابا كده سهر مالك سهرة وإليسو إبي كيس اللي بنوقع ساعد وطنا بجران سهرون يكمو إليس بالله إله أونو محب هذا تعاون هيس تعايلة كلا كلا يا هيس قياسك يا قبل أبي دقلو برا جعل كاسو سنيو ونقلبو أبابيا وبتكسد اللو كرشي أبي دقلو برا جعل كاسو سنيو ونقلبو أبابيا
calmaday حبيبي أتواد أكتهي إناكو أمناحي إبكنا كاليقا كرابو أساقك calmaday حبيبي أتواد أكتهي قلبي قوينو يا يوم إنك حديث فتحي الماضي كنت عاديان ليلة نقل للصعود قلبي قوينو يا يوم إنك حديث فتحي الماضي كنت عاديان ليلة نقل للصعود أدبادو مهدسنتين هي المركز ميكروفون كيبي قلتك ايش قياسك ان واياي waxaan ka codsanaa dadka halka tuman please maamulka hotelka waxay yiraahdeen fadlan halka ka soo dega ama dib u dega ama hore u soo dega ama dhinacyada u dega ma ho wahagaag wariyaan kulula anigii caatada haba sidan u kulaaday talo dadka buurbuuran sorry aniga cayilka waayo markaas aan idaadaa war cayilku markaan waayo moogta waxaynu galanaa in yar aan ku nasanna waxa taala halkan hadiyada aad u qaaliya oo laptopya ku jira kombiyuutarra ku jira telefoonadii ugu dambeeyay ku jira marka su'aalaan idin weydiinaya qofkii garanaya gacanta taago armay hadhow yiraahdaan adiga soo kiciyay emoota qofkii ugu hortaagan weey waayahay waxaad ka jawaabtaan qofkii garanaya ha sheego dalkii ugu horeeyay ee Afrikada madowga waa Sahara maha wadamada Carabta ugu horeeyay ee Afrikada madowga ee xorooba gabadha ugu dambaysa wala Ghana wala laga horeeyay yaa kale idinkuma ma martidaada haydeen waxba soo dhaweynayeen aga yaa warin namada yari ay kale yaa ogaray mid baa Ethiopia isku qaaday is qiyaas Ethiopia way soo socotaa aye arwa kan xariifki بسم الله الرحمن الرحيم وحنو مالينيا عوكو إنها هاي ليبيريا والله سيكتي أيه يا كله ما أعطيك نو نو المرايد علي أفرندوت كشهر كمدو عروة كان حريف كيرا
haddaan isku dayo waxaan u malaynayaa inay ahayd Mali. waa la seegtay ees qiyaasag lee inaan hadiyadan balxaawa ma adiga oo lagu soo sheegaa deer bala bismillaahi raxmaani raxiim haddaan isku dayo waa South Africa ogore waa la seegtay haye gabadha horta u kaadi gabadhu ha timaadee adigu xornimada markaa waad noolayde dhalinyarada adiga ma sudee akaale allah akaale hona kaale waa bal u kaadi horta adigu bismillah oo ninkii ubax la ciyaarayay mise ilaa isbaahay gow cawka weligeed kan maa qabanayna degdeg ayo waxaan u malaynayaa inay Somaliland tahay ees qiyaasag way ku wanaagsanayde waa la seegtay aadan wuu garanayaa aadan wad ii dhig makarafanka aduu halkaa may ha u dhiibin aadan al abalaa u gaab kaale haye waxa weeyaan waa koonfurta Suudaan koonfurta dalka Suudaan waa dalka Suudaan aruu gartay waaw abal kaale kaale hadiyadda hal lagu siiyay hadiyadda u keena ya waxa weeye hadiyaddan noo keentay oo waa hadiyad qaali ah ariye haddana maan jilba joogsadaa jilba joog maasha allah imise jir baa tahay wax yara inaad in yar ku darde in yar kisto hoos buu dhigay may kor u yara qaad 28 laba kale laba kale 29 waa wadaa soo maartay hoo hadiyada 24 25 ilaa 29 buu maray madhow 39 buuga magacaago saddexan muxuu ah Mustafa Xasan Axmed Mustafa Gaab Mustafa Xasan Axmed Mustafa Gaab halkeed ka shaqaysaa idaacadda raadiyo Hargeysa aga maba ogeyne ee wararku ku maqlay idaacaddu ka shaqeeya Mustafa naga gudoon hadiyadii aryadan Suudaan baa ku adkaatay anuu Afrikada madow baan nidhi waayo waxay qaadatay sanadkii 1956 Gaana ayaa ku xigtay oo 750 ahayd laakiin Masar oo kale oo 1922 marka iyagu waa dalalka moogtay aan madowga lagu tirin waxaad sheegtaan dalka ugu yar Afrika adu fadhi qurba joog ma rabno عارفادي حاجة جوكادي كاله وسو تاجنا ليش كده وسو تاجنا مركي حرني ما ذوقت أيه كيو غير horta ana in kaftana ku daraya markii hartii xasan cawkaan biyaha ka dhaamin jirnay foostooyinka foostooyinkaasina ahayn kuwii garaanta labada garaameed lahayd war weyn wada joognay dhageyso waxa weeyaan koonfurta Suudaan ayaa ugu yar anuu kuma odhan ugu imika xornimada qaadatay dalka ugu yar waa dawladda jamhuuriyadda Djibouti waa la seegay adeero magacaa عمر أيوه عمر أحمد أحمد أيوه أحمد عمر توش إيه عمر أحمد عمر توش مركو كورو قرنتونا هي صوصعو شعر جدود ما شعر كوانو دي اللي ما أدري أيه إمك أيه بسم الله الرحمن الرحيم dalka ugu yar Afrika waa jamhuuriyadda ku dhex taala South Africa ee Lesotho كل فترة صعبة والله سيكتين ما تشتو آذن وكمصين يا سعد آذن حاجة معلمين تيدي أيه
oo maasha allah waa ninku dheeraa السلام عليكم جامبيا وين anugu waxaan ku yidhi africa oo dhan mainlandka waa la seegay haye kaaleno soo kac halka gabdhuhuna ilaa laydhaa kaalaya ma kackacaan moogta maxaa tidhi waa Botswana waxay ku leedahay waa saxuuni dee waa Botswana waa la seegtay abaayday horeeba badanaa dadku waad weynta adu allo argaado ganuye haa kaale may gaado allo waa inan yar ma gaabna sooreeya haye adeero haddii aan isku dayo su-aasha oo Jabuuti waa boqol bay ka weyntay Jabuuti waa runtii waxaan aad ugu faraxsanahay oo aan jecelahay oota mar haddii magaciina laga dhawaajiyey maanta 27 Juun bay ahayd waxaa xornimadeeda Faransiiska ka qaadatay jamhuuriyadda Jabuuti waxaan leenahay meel kastoo ay joogaan madaxweynaha laga bilaabay Ismaaciil ilaa iyo dhammaantood jamarwadiisa hambaliyo kolba makarafana laydiiba waa tanimaba dhawaaqaye kow hambaliyaanu leenahay jamhuuriyadda Jabuuti oo maanta 27 ay ahayd 26 Soomaaliyana kowda luuliya qaadatay iyagana hambaliyaanu sii leenahay waa la istaba socdaa leh haye kuma waadii garan waayadun isqiyaasag aduma ku noqnoqonaysa ninka caatada may gabadha ladies first dhaxaa dumarku inaanaba soo maaha wayna dhaleeno ay noo dhaleeno isqiyaasag maasha allah magacaahunno haweeya kulley dibaddaad ka timi canada maasha allah war maxay safar soo gashay haweeye waa dalkee dalka ugu yar afrika Mali alla waan jeclaa haweeya inaad garatay am sorry dhulka ma fadhiistato waa balkaale haye muxuu maqiiqay haye anige magacaygu Cawaale horta Cawaala haye waa Eritrea iska soo boodiyo kaale ina kantii sheerka nagtayga la sita haye magacaygu Gulay Khadar Biixi oo Comoros marman waa bilaa Comoros inanta isqiyaasag يا سلام ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم وحنا مرينا ودنك غانا والله كم هي بابطر ماذا قرني اي وسيشلس وقرتي وسيشلس وارون waayo waa baday ku dhex taala laakiinse mainlandka marka la yidhaahdo ninkii horaa gartay oo waa Gambia laakiinse waa Seychelles hadiyadda yaa keenaya waaw wareenkan nasiib badana waa dalmudii kani ku jiro hoostaaban gashan lahaa waa Samsung i910 wow oo digital ah waxaana keenay Juba Express magaca Khalid Abdurrahman Malik Khalid bin Walid Khalidow iga hanti way hees ma ku yaranasana mar su'aal way badayina Daawud mee ku doonayaayo adigu baad isqiyaasag Daawud dayo alcaawa maxaa dadkii kala haysta kuwa dambeen soo wado
haddii hoosta telefon la ii soo diro waan sii sheegaya daawud yare maasha allah waa la soo bato please and please war dumarka uga kacaniyo kuraasta dhallinyaradaay oo weliba se loo kala waaweyn yahay uga kaca dumarka ma ku xijiya sida dumarka soo dhowo ka cismaanna wuu ii sheegay maamulkii udheelku waa hagaag maamulku wuxuu yidhi naga sii yarwad kamanko maamulku wuxuu yidhi waxaanu ka cudur daarannaa oo aanu raalli ahaada leenahay intii loogu talagalay ayaa dadku ka batay soomaalideenna waxaanu nahay lastminute.com waa daqiiqadda u dambaysunbaa la soo yaacaa hore looma sii goosto haddii kale cismaan wuxuu leeyahay 2,000 oo qof hadday tahay kursi waanu heli lahaa markaa raalli hal naga noqdo cismaan waad mahadsan tahay awow isqiyaasag daawud war caabis maadigii baa gurubsaday aga hadhow baa la xaaqiiba iska day arrin noo qaado dunbay tariye allaha ka caabis ka dhigay waa kabtamiye saaxibna مركز عيون ذاكرة الصبحين وفيها بوكي مركز عيون ذاكرة الصبحين وفيها بوكي وحالي بالكينا مذات كل شيء وحي دريدا نبوك الحسون قالوا يجوبني قالوا وحالي بالكينا مذات كل شيء روحي بريتا نبوك الحسون قالوا يجوبني قالوا يجوبني وكونا يا يواني ولا درادا تهيدالي وكونا يا يواني ولا درادا تهيدالي وفاكو دياري ومتان كدورتاج عوان 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 تذكرني عوان 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 تذكرني فرحتي كما شاء
dadku sara kaco kolka loo baaldigo sida calanka jooga farxad iyo damaasha dadku sara kaco kolka loo baaldigo doolo iyo haw idiyo dareemada mulcayhigaadkii digoon jibiydigin duyana anigu xirin duyana anigu xirin doolo iyo haw idiyo dareemada wacyigaadkii igoontididigin duyana anigu xedhin duyana anigu xedhin wuxuunayayo aniguna taraaka ubiitaale wuxuunayayo aniguna taraaka ubiitaale naftaan ku diyaare dumartaanka doortay cawan 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 kubakuliya cawan 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 kubakuliya cawan kubakuliya Thank you very much. galkii kamanka moojaan meel baan dhigay magal hadda waxaan is wada daba shiidanaya caabe oo maxay ahayn waa kan galkaagiina daawud cali masxab aad ayuu mahadsan yahay hadiyadaha ilaa iyo ilkaha buuxa isqiyaasag waa inaan kala gurnaa soo maaha su-aasha ku xigteen idin hayaa waxa weeye dalka ugu weyn afrika hadda midh garan maayo la wada taagaya isqiyaasag waa kan هيا هيا هو كان لي يمين ديكوسية أنا كورينا ألجيريا يا ألجيريا يا كوساك سيشلينز السودان ما السودان ويكلا قلا هذا ألجيريا بوي صوصي هذه ده حريف بهالكسوق ويوصلها وقرواي هذه ده كان هاي ووريتني الرصا waxay ugu qosol badan waxa ku jira ma ogi buu yiri baashan ku dhiibay armaan ka carara intaan tuuro baal xidhan laakiinse shirkadda kambaniga noo soo laabay ay noo keenay noo soo xidhxidhay waa naanis waxa weeyaan adiga maalin dhow daban surwaalka iibsado caawa haddaan soo xidhan lahaa waa lay caruuri lahaa bal isqiyaasag naanis haye please waxaan idinka codsanaa halkan haystubinaa la leeyahay waayo waxaa jira kamaradahan CCTV-ga oo meesha ku rakiban ee dadka wada haya inaad ka qarinaysaan haddiiba qofu is idhaahdo qof yaro dhirbaax ama midiyar iyo inkastoo security waaya allahuma salli calaa maxamed waxaad sheegtaa adduunka ilaahay maana waxaad sheegtaa baan waaba la taagayba weligii iyo waaqe waxaad sheegtaa waa gabadha iyadaa sii taagtay qofkii ugu horreeyey ee afrikaana ee ka noqda qaramada midoobey xogayaha guud ayay inanta soo kac inantaa u horraysay ma majacnaha soo qol ya dhinacan gabdhaha ku waayahay isqiyaasay
ما abtixaay ma kisto kamaraduna way ku haysaa wallayna arkaya ma waatanayna soo banne haye magacaadeero حمد عثمان عبدي xamda ma sha Allah waa kuma كوفي عنان ما laba jeer baad sheegtay way ka xumaatay هاي الله يا اسكو دايسته سدحدينو afrikaana بدرس qaali waha waa gartay هذا بليز inaanu idin soo kicina mooje بليز qofaan u yeedhna moojeede laakiin se waa naqaanaa qolooyinka soo kaca moogtay waxay doonayaan in kamarada laga arko hadhow idhahdaan may arkaysa marka waa yara ceeb maya ma ahad idinkiyo may axmed adinku ma jirtida may miidiyaha isaga ma aha orye waa milgo maasha allah ayaa hadiyadaasina siisay بليز qofna yuu soo kicin qofaan u yeedha mooje waaniga adduunkoo dhanna idinku u sheegay in qofka soo booba wuxuu doonayaa un kamarada in laga yara arku idhaa xalay may arkaysino ya waa hagaag waxaad garataan qofkii ugu horreeyey ee afrikaana ee madow ee qaramada midoobe xogeeye guud ka noqda gacanta ma la sheegay waar lama sheegina sheega isqiyaasag oo annagu maanaan waxba ku lahayn waa eeg waa kala laba qofkii ugu horreeyey ee afrikaana ee qaramada midoobay buu ahaa kii hore qofkii ugu horreeyey ee afrikaana ee madow weeyaan iminka haye xasan diirkoodna oo kale leh waxa uu ninka la yiraahdo Kofi Annan oo imankan oo u dhashay wadanka Ghana yes absolutely saaxiibkay isqiyaasag waad sheegtay kuleeyin xageenu ka sheegay waad ku soo qaaday ar hadiyadii keentay me Kofi hadaale arakan mr Kofi Annan xasano waa culustayga qabo waxaa weliba keenay karti badan ee kaysa bishaaro cawa karti badan ay noogu daran maaha waa tii la iskala baxay waxaad sheegtaan buurta ugu dheer somalilan war xaggan umaan ka guraye kalay de adigu qabanqaabayaashaadayda waa surad halkay ku taallaa waxay ku taallaa cergaabo ma hubtaa ma gobolka mise magaalada gobolka wuu gartay waa hagaag magacaa buraale jibriil buraale dee markaad dhalatay buraale laguma bixin bala cabdilaahi dade waan yaabay inaad buro ku dhalatay dhallinyaradun baa kuu bixinaysaa keen hadiyadda armay ninkii koofiyadda lahaa wallahi wuu iska dhigay tan ayaa sponsor gareeyey oo milgo waa markii labaad ee hadiyadaha waxa weeyaan kani hamoodina saabuun iyo wax milgo waxay soo daynaysaa ilaa iyo 9 channel oo aad daawan kartaan marka waa receiverkii waa baalkii aad ku daawanaysa ya salaam ablo buraalo buraale anigo mid jeebkayga ama keena mise hees baan idiin saaraa hees ma yaro saaraa deganey
aaway degan uuna soo soco aga aba muuqata hadda marka gabarya heesta waan sooxa Yeah.
دقن وين ديرسي ان الموبايل الذي انا كوهيا دي اس قياسك نمبر كاغا يشيك ميان اسكا بخينيا ان ururka soogsa waa dhalinyaradii hidiya dhaqanka waxaan jeclaan lahaa inaanay sii fogaan soogsa oo dee khadri inoo wado soogsa waa kuwaa soo duweeg laybe hore waxbaan agaasimi kari lahaa haddii lay dhiibto ya soogsa oo bal ciyaartooda gabdhaha daawada la jaan qaada maaragtay marka nimanka dhargey la wareysanayo bay ku oranayaan marka sableeda yaa is qiyaasak riyaadahe caaw muraayadaan u baahnaa si aan aad wax ugu arko inkastoo weli aanan muraayad qaadan 70 sanana wuxuuna akhriyey yaa mid arag iyo mid akhristoona Kennedy ka warar absolutely soogsa intii mariyaha caddayd anigu dhufta dee durbaankii soogsa waa maxaa ciyaarta midaad ugu tala gasheenba hawaka heestii haa qof maan u dhiibaa de anu aan ka baxe نصري عليكم شوكي نلقاو بحالي